galay haliyadi daraawiish iyagoon urursiyo sidan hawsariyaji iyagoon urursiyo sidan hawsariyaji ciideena wadanka waqooyi nafdooray maalinkii lixaad ayuu galay dagaalkii u dhaxeeyay hooyada dhadiga ah ee dhashay shabaab ee SNM iyo jamaahiirta SSC warbixin ayaanu idinkaga haynaa waxaad kaloo barnaamijka ku maqli doontaan isla markaana aanu tooshka ku iftiimin doonaa goobihii maanta lagala wareegay iyo guulaha u soo hoyday jamaahiirta SSC iyo niyad jabka ay kala hoydeen jabhadda ama hooyada dhadiga ah ee dhashay shabaab magacaygu waa Hilacsool channelkuna waa isla Hilacsool fadlan saaxiib haddii aad nagu cusub tahay si aad noola socoto barnaamijyadeena channelka subscribe dhaho isla markaana gambaleelka furo waxaanu idiin soo gudbinaa warar sugan isla markaana runta ku salaysan maalinkii lixaad ayuu galay dagaalkii u dhaxeeyay jamaahiirta SSC iyo hooyada dhadiga ah ee dhashay shabaab ee SNM halkaasna runtii iyadoo waliba ay xalay ku dhawaaqayeen xabad joojin bilaa shuruud ah xalayna waan idin sheegay xabad joojintaasi inay ujeedo gaadniin ah ka lahaayeen laakiinse jamaahiirta dad ay gaadi karaan ama dhulbahante dad ay gaadi karaan ma aha oo waa dad is yaqaana weeyaan ujeedkoodina wuxuu ahaa inkastoo ay islahaayeen dhulbahante wuxuu qaadanayaa xabad joojinta laakiin dhulbahante xabad loo bilaabay ma qaato wax xabad joojin ah ee xabad ayuu wax ku xaliyaa xaqiiqda runta ah idooro waa midaa jawaabtiinana ismada idin siiyay oo inaa idin siiyay uma baahna waayo ismada waxa ay idin yiraahdeen ilaa aad ciidankiina og dhaafisaan wax wada hadal ah oo na dhex maraya haba yaraatee ma jirto waaba hadduu wada hadalna dhex maro saaka waxay ka soo galeen magaalada Laascaanood 3 jiho jihadan la yiraahdo koonfurta magaalada Laascaanood buurta dadku laba magacna waa u yaqaanaan toga erigona waa u yaqaanaan buurta khaarijina waa u yaqaanaan iyo gooja cade iyo dhinacan xabaalaha ee buurta sayidka ah orta alxamdulillah saddexdii qayboodba waa laga qabsaday waxay ku jiraan hog yar oo buurtan khaarijiya ama godka ama togan erigo ah ayay ku jiraan iyagii oo bilaasahay ah Allahu musta'an gaadiidkii ka wada banjaray ayay god gudihii xabad ku soo ridayaan caawana la meerayaa jamaahiirta SSC waxaan leeyahay nimankan iidoor xabad orta ma yaqaanaan inta hadayna caawa meera waa xaqiiq caawa meera halkaas ayay ku arkeen horta warka farxadda leh aan idin wada waxa weeye meeshii ay ka soo duqeyn jireen magaalada Laascaanood ee ahayd xabaalaha iyo dhinaca buurta sayidka runtii waa laga qabsaday oo falillaahi alxamdu guul iyo gobonimo ninka guul iyo gobonimo oo hadda waxa ku sugan isla waqtigan xaadirka ah idin la hadlayo jamaahiirta SSC ayaa ku sugan dhinaca xabaalaha waxaana ku sugan ninkii ay ka baqi jireen ay ka argagaxeen ay yiraahdeen magaalada Laascaanood shabaab baatimi Cabdi Madoobe ayaa ku sugan oo runtii xoreystay aagan khaarijiyana waxa horeystay Maxamed Waranle Mujaahid Maxamed Waranle ayaa aaganna dhinacan kalena xoreystay isna bal ila yara daawada Maxamed Waranle insha Allah horta waa aragtaan hooyadii dhadiga ahayd ee dhashay shabaab ee SNM jabka ku dhacay waad aragtaan
caalamka waxay u gudbinayaan waad aragtaan dhinaca buurta khaarijiye waxaa horeystay ninka la yiraahdo Generaal Maxamed Waranle oo nin ay saa uga kaajaan ah ninkii xasuustaa garanaya waa ninkii hantidooda kaga soo qaadi jiray intuu caynaba dhaafo ilaa og inta ka shisheeysa kaga soo qaadi jiray Maxamed Waranle guul iyo gobonimo ku leeyahay Maxamed Waranle dhinacan kalena waxaa haysta ninkii ay ka baqi jireen ay ka argagaxayn ay yiraahdeen magaalada Laascaanood waxaa nagu soo weeraray shabaab Cabdi Madoobe ayaa haysta barta ay ku jiraan iyo godka ay ku jiraan baan in yar idin tusayaa bal ila daawada godka ay ku jiraan nimankaasi iyo meesha ay ka dagaalamayaan iyo silaca haysta bal ila yara fiiriyo Ilaahay baa idin ku dhaariyay dala ku dhacday uurada baxaysa waa meesha ay ku jiraan uurada baxaysa waa meesha ay ku jiraan runtii waxa la yaab ku noqotay umadii jabhadan argagixisada ah muddo 30 sano ku dhawaad sheeganaysay dawlad madax banaan inay tahay awood iyo quwad ay leedahay Allahu musta'an i'tiraaf raadinaysay 6 maalmood ayaa lagu soo wiiqay maanta wax awood ah iyo wax gurmad ah oo u haray haba yaraatee ma jirto meedkoodina waa tirabeel magaaladii Laascaanood ahayd bakti baa iyadoo dhan ka soo qoraya waxaasna waa meedkoodii oo daadsan war ciidankooda ka dhaawacma hada waa ay ka tagayaan ama iyaga dhameystiraya dhameystiraya inta hadhayna insha Allah waa isa sii raacin doonaa waayo horaan idinku sheegay nin darwiishada xabad looma bilaabo hadii loo bilaabana hadal waxba kuma xalliya xabad buu wax ku xalliyaa aakhirna iidooro waxaan dumar ahayn idinka soo harimayaan war waa hilaac soolo oo idin leh is aragti dambe oo xiisa leh intii aan gudnimo ku noolaan lahayn geeri ayaanu ka doorbidnay guul iyo gobonimo